tartanka ammaanada hantiyadeed ee magaalada Muqdisho waxa ku baratamaya bangiyo waaweyn. Tartanka waxa uu bulshada siiyay ahamiyad ay ku dooran karaan hadba halkay u arkaan ammaanadooda dhaqaale inay ku xasilayso. Bank oo door muhiim ah ka ciyaartay hanaanka xifdinta dhaqaale ee shacabka iyo u adeegida bulshada marka ay timaado in la taageero ayaa waxay haatan si weyn kaga muuqataa magaalada Muqdisho. 15 July 2019 ayaa dhidibada loo taagay bangigan waxa uu soo maray bangiga marxalado kala duwan tariya markii ay maamulka garwaaqsadeen inay si buuxda u taageeraan shacabka Soomaaliyeed. Dijinta iyo fikirka waxa uu ahaa mid libintiisu ay maanta bulshadu heshay. Shaafici waxa uu ka tirsan yahay maamulka Bank waxa uu iga warbixiyay marxaladaha kala duwan ee uu bangigu soo maray taniya markii dhidibada loo taagay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد مقعي وشافعي هلول علي مدح سوقين Bank وهرين بالشيء الصومالي دوحان ربا إنان وربحين كوبان كسيو Bank يوحي ويهي يهالك وكيمت Bank وبنجي إسلامي كان رخصتنا كيستان وقلاشة كيستو بنجي قردحي الصومالية بنجي وحول ولا ليهي حوالة توكل وأصلحان وكيمت مركهره xaruntiisa ugu horeysayna waxa laga furay magaalada Garowe xaruntiisa labaadna waxa laga furay Goldogob ilaa ay wuxuu leeyahay 5 xarumood oo 3 xarumood ay ku taalo magaalada Muqdisho Trebiano Holwadaag iyo Xamarweyne bangiga Bank waa bangi digital markii aan leeyahay waa wuxuu leeyahay applicationo unique ah ama gaar u ah oo u sahlaya macaamilka inuu isagoo gurigiisa joogo isticmaalo ama lacag diro ama loogu soo diro lacagtiisan uu kala bixi karo dal iyo dibad meel walba uu joogo bangiga Bank wuxuu heshiis dhawaan la saxiixday heshiis caalami ah la saxiixday shirkadda Temenos oo ah shirkad ku shaqeysa horumarinta software-ada bangiyada ay ku shaqeeyaan qaar ka mid ah bangiyada shirkadaas ayaa u qidmeysay ilaa 3000 oo customer ay ku jiraan 41 bangi ee dunida ugu sareyso konton code bangiga dunida ugu sareyso 41 kamid ah xarumo kale insha Allah waxaan dhawaan rajeynaynaa in aan furno xarunta Boosaaso iyo Kaalgacyo haduu Ilaahay raali ka noqdo insha Allah waxaan rajeynaynaa in aan Soomaali meel walba ay joogto aan xarun ku yeelan doono haduu Ilaahay yiraahdo waxa kale oo jirto in bangiga qorshiyaashiisa uu waaweyn ay yihiin in uu dhalinyarada aad u horumariyo hadii ahaa lahayd maalgelintii waxyaabo badan aan dhawaan filanayno inaan bilaawno insha Allah ta'ala bangiga waxaan leenahay bangi Soomaaliyeed way ummadan ay u furan yahay waxa jira application gaar ah oo bangiga isticmaalo ugu muhiimsan yahay hadana available ah ama diyaar ka ah application loo yaqaan T+ oo ah program ama application aad lacag ku dirsan karto lagu soo diri karo xawaalad ahaan adigana aad ku diri karto dal iyo dibad meel walba aad joogto qanacinta bulshada iyo u adeegida 24 saac ayaa meesha ka marneen taasi oo aan indhaheenu ku aragnay intii aynu ku guda jirnay socdaalkeena xarunta Bank si kastaba ha noqotee maamulka Bank ayaa waxay diyaar u yihiin inay dhinac walba ka taageeraan shacabka Soomaaliyeed iyagoo haatan carabaabay inay soo wadaan qorshooyin badan oo lagu taageerayo shacabka Soomaaliyeed.